shacabka kala duwan ee ku dhaqan magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Saraar ayaa fikirkooda ka dhiibtay mashruuca sahminta shidaalka ee wasaaradda macdanta iyo tamartu ka wado deegaamo ka tirsan gobolkani Saraar waxayna si weyn u soo dhaweeyeen mashruucaasi iyo wasaaradda fulineysaba waana kuwan iyagoo murtaasi ka hadlaya. waxaanu doonaynaa aniga fikirkayga ahaan inaan ka hadlo sahminta shidaalka gobolka Saraar fikirkan ka qabo sahminta shidaalka gobolka Saraar ama soo saaritaankiisa wuxuu yahay horta marka hore aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa fikirkayga ahaan shakhsi ahaan aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa sahminta shidaalka iyo soo saaridda shidaalka qaranka Soomaaliland runtii way wanaagsan tahay in kheyraadka wadankeena ku duugan la soo saaro iyadoo cidna loo eegeyn waxay tahay in la soo saaro aad iyo aad bay muhiim u tahay fikirkayga waxaan leeyahay shirkadda waddo waan soo dhaweynaynaa wasaaradda macdanta iyo tamarta ee jamhuuriyadda Soomaaliland waan soo dhaweynaynaa magaca Cabdirasaaq maxamed ka balaya anaga waxna lagu shidaal baa la idin soo saaraya anagu cilmi uma lihin waa rabnaa oo waa doonaynaa dalkayaga kheyraadkiisa in la soo saaro siiba imanka gacanta lagu hayeel maxaan ku sahminta shidaalka aad iyo aad baan soo dhaweynaa hawsha fiican ee wasaaradda macdanta wado iyo shirkadda sahminta wadada aad iyo aad baan soo dhaweynaa waxaan kaloo inta ku darayaa cid allaale cid carqalad kala hor timaada in xukuumaddu talaabo sharciga ku waafaqsan karto aan ka hadlayaa shidaalka la leeyahay waxa ka soo saaraya Saraar waanu soo dhaweynaynaa runtii aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa ay sababtu tahay Soomaalidu waxay taqaanaa naf ku nool bay taqaanaa naf ku nool maanta waxayna haysto waa nafta ku nool xoolahayna waa kuwa goor ma jagactamin buurin kici goor ma jagactamin waa waqti ma eeg waxay ahayd in hore loo tacabso oo tacabka hore loo qabto وعبد الرحمن فيصل في ملك تلفزيون عالمي جاه بوشة تي في مقالة عينبا حرنتو قبل كسرار.